daawadayaal iyo dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo maanta kusoo qaadan doono taariikh nololeedkii fanaan dalmaryare oo hadda ka mid ah fanaaniinta kuwa Soomaalida ugu caansan kuna nool wadanka Mareykanka. barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dalmaryare iyo guud ahaan noloshiisii bilow ilaa iyo hadda oo maanta la joogo sanadka 2019 balse intaan u guda galin arrimahaas oo dhani daawadayaal halkaan nagala socotaan waa Muqmaal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamadda gambarka froosiyaad ula socoto xogihii ugu dambeeyay ee aan baahino. aanu guda galo barnaamijkeena fanaankan dalmaryare oo kamid ah kuwa Soomaalida fanaaniinta ugu caansan haddana ku nool wadanka Mareykanka ayaa fankiisa ka soo bilaabay magaalada Nairobi ee xaafadda isla markaana Soomaalida ku badan tahay. fanaankan ayaa ku soo biiray fanka isla markaana si aad u soo shaabaxay xilligii 2000 isla markaana kamid ahaa fanaaniintii ugu shidnaa magaalada Nairobi ama xidigaha Isli. fanaankan ayaa kamid ahaa kooxdii xilligaas uu hogaaminayay Shiine oo loogu magacaabi jiray waayaha cusub ayaa waxay ka soo shaabaxeen magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya isla markaana waxay ahaayeen fanaaniintii ugu shidnaa xilliyadaasi ee loo yaqaanay raabka. sidoo kale fanaankan ayaa ku soo shaabaxay heeso badan oo raab ah isla markaana loo qaaday dadka Soomaaliyeed oo isku jiray kuwa guubaaba ah, kuwa nabada iyo kuwa ka hadlayay waxbarashada iyo kuwa jacayl intaba. fanaankan oo hadda ku nool wadanka Mareykanka wuxuu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa ugu caansan isla markaana wuxuu sidoo kale fanaankani kaalinta koowaad uga jira fanaaniintii dhexe ee soo baxday kadib markay burburtay dawladii dhexe ay meeshana ka baxday. balse waayihii dambe waxaa bedelay fanaaniin kale oo fankoodii uu yahay Naasa Haysaar iyo sidoo kale fanaan lagu magacaabo Faldegan iyo fanaanada kale ee hadda midda shidan weeye Fartuun Balbalaarka. fanaankan ayaa wuxuu heeso badan la qaaday Falis oo ka mid ahayd fanaaniintii xilliyadaasi sidoo kale soo shaabaxay isla markaana masraxa fanka iskaga baxday aysan waayahan qaadin waxeesa. sidoo kale fanaaniintii xilligaas ee lagu magacaabi jiray kooxda waayaha cusub ayaa sidoo kale goobta maantay aan saarayn masraxa. sidoo kale waxaan wajigiisa in muddo la arag Shiine oo ka mid ahaa kaaboygii ama hogaamiyihii kooxda oo xilligaasi ugu shidnaa fanaaniintii soo baxday. fanaan dalmaryare oo hadda ah fanaanka ugu weyn kuwa waayihii dhexe soo baxay ama fanaaniintii dhexaba aan dhehe ayaa ku nool wadanka Mareykanka. sidoo kale wuxuu halkaa kasii hormariyay fankiisa. fanaanka ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi isla sanadkan kadibna wuxuu dib u booqday magaalooyinkii iyo deegaanadii iyo dhulkii uu tagay ee uu ku noolaa xilligii uu ku soo biirayay fanka. fanaanka dalmaryare wuxuu hadda caan ka yahay guud ahaan geyiga Soomaalida wuxuuna qaaday sidoo kale heeso badan oo ay ka mid yihiin kuwa la qaaday qarixii October ee ka dhacay Soomaaliya kaasi oo ahaa midkii ugu weynaa abid soo maray dunida kadib markii laga yimaado 11 September iyo 20 December. fanaaniintii waayaha cusub ay ka mid tahay Falis ayaa sidoo kale iyaduna la filayaa inay dhawaan ku soo laabato masraxa isla markaana ay soo saaraan heeso. fanaankan ayaa hadda ah fanaanka ugu shidan kuwa Soomaalida ah sidoo kalena wuxuu soo saaraa laxamada iyo sidoo kale ereyo uu asagu sameeyo wuxuuna sidoo kale leeyahay heesta hadda aan idin maqashii doono isla markaana la qaaday qarixii Sooba kadib. waxa lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay marqura dhiibiyo kacay wixii dhig lahow kacay dameerku intaanu dhiman dhulkeena difaacane. ujeedkii markii hore fankaan u galay wuxuu ahaa 100% kadib markaan arkay wadankeena oo burbursan bulshada Soomaaliyeed intaasoo meelood u kala baahday anigana experience gareeyay qaxooti fara badan dadkii oo dhibaataysan inaan dhalinyarada xoog saaro oo ku wacyigeliyo xagga nabadda iyo inay hubka dhigaan oo ay maxaan ku leedahay dhinac kale noloshooda u fiiriyaan. halkii aan ku dhalanayo dhulkii hooye ee wana dararna habqano habeena ku dhixin miya. magacaygu waa Mukhtaar Maxamed Cali waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed waxaan fan ku jiraa in muddo ah anoo yar baan kulay fanka galay
dhinaca kalena waxaan ahay nin family man ah oo ahna macallin school oo wax ka bara iskuul ka mid ah iskuulada gobolka Minnesota. 1999 bay ahayd masraxiyadii ugu horeysay mahadiya ka gaarto macallinkayga macallin Bashiir Maxamed Cabdi waa qofkii ugu horeeyay stage sare waana meeshuu iga baxay magaca Dalmar riwaayad bay ahayd kadib markaan caqabado badan familka kala kulmay waxaan soo gudbay Nairobi waxaan ka aasaasnay kooxdii waayaha cusub muddaan wadnay anigoo waliba markaa aad soo qarin jiray inaan banaanka u soo saaro fankayga because howlaha familka kadibna Mareykankan u gudbay Mareykankan wax soo saarkii ugu horeeyay oo saxan oo isheeg official ah aan ku soo saaray intaa waxa ka dambeeyay maalinta ka dambeysay waxaan isku daynaa fankaysi hormariyo dabanada xasankii lagu dheehay quruxdiyo daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaan oo kaga hadlaynay taariikh nololeedka fanaan Dalmar Yare fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar calaamada gambalelkana furo si aad ula socoto xogihii ugu dambeeyay aan baahino